بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إلهي أسقو نوغا ورمهايا oo nagu tarbiyaynaya shayga ixsaanka la yidhaah wuxuu yahay khalqiga ilaahay in loo ixsaan falo, ilaahay taqwadiisa in lagu dheeho ummadda in loo ixsaan falo, in ummaddu ay kaa hesho khayr, in ummadda aad u noqoto uswa xasana ah, in ummaddaada aad u noqoto geed hoos looy harsadaan ee adan noqon naaruljaxiime ay ka cararaan, ayaa ilaahay wuxuuna leeyahay إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إلهي معيسا وحويها يغو كالمية هو قعنقباشا وياشا أو طريقة وناكسن كهنونيا روحا إلهي كعبصدا أو عبصدا إلهي مطلع في قلبكيسا يكون لها انتهي إيا روحا خلقك إلهي أو إحسان فلا أو محسنين تليله أو إحسان كبضان سيدا أيا إلهي آيات كلو حكيري: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إلهي آياتها وحون قطصها إنانو يلانو دلقات، inaannu yeelanno isu turid, inaannu yeelanno isgarab qabsi, inaannu yeelanno isu naxariisasho ayaa ilaahay idinku tusaya. dariiqa wanaagsan ee ilaahay uuna ku hanuuninayo waa inaannu kuwii qaada aan noqonnaa. sidaasaan ilaahay ka rajaynaynaa. nabiganagu wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh, asagoo dariiqaa naftiisa nagu hanuuninayo ayuu wuxuu ina yidhi: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها إلى يوم القيامة لا ينقص من إحسان من فضائلهم شيئا. إلهي رسولك سوحون إليه: من سن سنة حسنة جد وناكسن ننك أمد وهركعة، جد وناكسن ننك أمد كهنونية. مثلا ننكي اقتصادك ومدى كهانونية، تبعاشدة كهانونية، ودا جركة اي كهانونية ودا جيران كهانونية اينا اسقرب قصدان، كهانونية صفقة لي اينا احادان، كهانونية الهي اينا عابدان اي يكورا اي اسكو في اللانشاء اي شرف اي قاران روحا وها امودان يهي اي النبي قونا كوكاشاكينا صلوات الله وسلامه عليه. سيدا اياده بأينو هرماريين. من سن سنة حسنة jid wanaagsan ninkii u jeexa oo jid wanaagsan u qeexa ummadda oo ku hogaamiya oo ku horkaca oo ku hanuuniya oo ay ka qaataan wax alla wixii ajir ah oo jidka laga helo ay oo dadka kale ay ka gaaraan ayuu asaguna leeyahay, asagoon ayakana ujuurtoodii waxba laga nafsaanin. waman sanna sunnatan sayyi'ah jid xun ninka ummadda hor qaada, jidkaa xumo muxuu yahay? isdil, isnecbaasho, kala tag, tafaruq, wax alla wixii xumaan ah oo ka yimaada oo sayi'aadka oo asagu dadku horseeday ka yimaada ayadoo loo laalaabahayu leeyahay. wax alla wixii asaga ku raaca oo jidka xumaa ku raaca uga dayda xumaantii ay sameeyeen asagana dusha laga saaraya ayadoo ayakana sayi'aadkii wax laga nusqaabiyey uusan jirin. sidaasaa nabiga naga suubanay oo inoo caddaynaya. marka waxaa waajib ah bacdamaa aan garanayno shayga wanaagga ah haddii la sameeyo wixii ka dhasha
مريه كذا شيء قرنينه مثلا اتحاد يدي ومدى الصومالي إيا جهادك أي صومرين إيا طريق يدي وناكسنا يكسوه قواميين ضدك حدا نفرصنا إلى يومنا هذا ما أنت اللي يسو قاره إلى مالت الله بالله أو صومالي أي جهادك بالله جيل لك هوري أو هاتن نجاه الرئيين أو ضياش هوري تاريخ القحطين جيل كودي وحي لصومري وحي وناجها كذا شيء waxay leeyihiin dadkii hogaamiyaasha ahaa ee ummadda ku hogaamiyay waxay leeyihiin ajirkaas oo waxba laga nusqaamin dadkii ayaga ka soo horjeeday ee ku khilaafay ee sheeganayay inay ayakuna isku dad yihiin ee ayaka dulwareenka ku dhifanayna wax alla wixii xumaanahay oo ka dhashay ayay leeyihiin ayadoo loo laalaabo ay leeyihiin kuwan amalkooda waa loo laalaabaya kuwaasna ayakana sayi'aadka korka laga saarayo مثلا haddaanu eegno nin maalqab ah ayaa wuxuu sameeyey in ummaddiisa uu ugu horseedo si ummaddaasi ay shirkooyin u yeelato si ummaddaasi warshada u yeelato si ummaddaasi beero waaweyn ay u tabcato si ummaddaasi faqriga u baxdo dadka ku saacida ee ku raaca asaga ajirka ay ku leeyihiin oo asaguna leeyahay badi u leeyahay ayakana waxba laga nusaamin ninba wuxuu yeelayaa ummadda shay caafimaadkeedu ku sugan yahay malaaji oo u sanaynaya waa looga dayday rag badan asagana gadaashii sameeyay uga daydeen ajirkoodii asaguna waxbuu ku leeyahay ragga uga dayday ajirkiisa u leeyahay ninba wuxuu sameeyay mashruucaad waaweyn oo ay ka mar yihiin jidad la falo ceelal la qodo wara la sameeyo en beera iskaashatooyin la sameeyo dadkii sameeyay ee arinta ayada sameeyay dadkii uga dayday ayakuna ajirka ay lahaayeen ayuu leeyahay ninkii mu'assiska ahaa ee arinta aasaas مثلا dadka madaxda ah haddii ay ummadda u horseedaan ee ay ku hanuuniyaan shay khayraad ah شيء ودجر شيء اقتصاد شيء دفاع ودنك كيسة شيء تعليمته عافماتك وح الله وحي أي كهنونيان ضدك وقضينا كراعة أجرك أي هلهيان أي يكون إليهن أي يكون قوة وحبال لغا نصامي مركز سيداس أي النبي النبو حوليه من صن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا أيضا من أجريال كود وحلق نسخاري يجرين ومن صن سنة سيئة جد حنك أمد ورسالة تفرق كالاتك اسنعبان اسجاسوسيت احتقار توغو اسدل وحالله وحي سيئات هور علانية نكو ورسالة haddaba wuxuu leeyahay aakhiraya adduunka hoog buu leeyahay hooga uu leeyahay ninka uga dayda ee ku raacana dhibaatadii ka timaada korka laga saaraya ilaahay wuxuu leeyahay wajazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqadda'a aydihim wa arjuluhum min khilaf أو ينفوا من الأرض ضدك ومدى فسهاد أوركع إلهي آياتك سوانا دا وناكسن حقيقة نقوه قامنية شيء خير كان نقوه نونية إن خلافة جد كالي رمباشا هذا بدنك عسقع ضدك عيكا إلهي وحوري وجزاء الذين يحاربون الله ورسوله وهي حساتين ضد إلهي الرسول كان لا دقالمي وكتور جستين المدين بعدما آيات القرآن كهو بينات كتور جستين بعدما حديث النبي كتور جستين بعدما أي ضبيعة دي ونكتر كتور جستين بعدما أخلاق دي ونكتر إبابيين وهي حساب زين كتور جستين إلهي الرسول ضد كاسي مركم حي مديهين بعدما إلهي آيات كيسي إيا قرآن كريم كها إيا أحاديث النبي إكسو هرجيسين وحي لمدهين
dad ilaahay iyo rasuulkaba awaamirtiisa diiday markaa maxay mudan yihiin waxay mudan yihiin an yuqatalu marka hore bal in la dilo waa mid aw yusallabu ama se la salbiyo oo madaxa loo laalaadiyo ilaa ruuxu ka dhaco aw tuqataca aydihim wa arjuluhum min khilaaf ama lugaha iyo gacnaha laga guro iskhilaaf looga gooyo laba isdhaafa laga gooyo aw yunfaw min al-ardi ama carrada laga anfiyo oo meela dheer lagu xabiso haddana waxay leeyihiin cadaab aakhirna waa leeyihiin waa u dheer yahay marka ummadda marka waxaan laga doonayaa oo ilaahay naga doonayaa oo rasuulkiisu naga doonayaa oo dadka akhlaaqda wanaagsan naga doonayaan oo madaxda ikhlaaska qabtaa ay naga doonaysaa in ilaahay loo hoggaansamo in aan isku mid ahaano inaan walaala ahaano wa kunuu cibaadallahi ikhwaanan inaan walaala ahaano inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum ilaahay sidaas uu leeyahay fasahaadiya lama dhihin walaalihin dhexdiina fasahaadda inaan iska dayno inaanaan isdilin inaanaan iscaayin inaanaan isdhicin inaanaan isxarin inaanaan isdulmin inaan ahaano far kaliya inaan ahaano maxaa jira iticaadka ayaa wax walba lagu gaaraa wadajirkaa wax walba lagu gaaraa wadajirkaa nicmo lagu gaaraa wadajirkaa barwaaqo lagu gaaraa wadajirkaa jannada ilaahay iyo ilaahay radadiisa lagu gaaraa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan ahaano dad u qalma mu'minnimadiida mu'miniin khaalisa in laga dhigo in ilaahay mu'minnimo nagu nooleeyo mu'minnimo nagu dilo mu'miniinta micigeeda nala soo bixiyo qiyaamaha haddii la gaaro intaa ayaa darsiga kuga eegaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu